kulanti waan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aan ku eegi doono arrimaha waayahan baraha bulshada qabsaday gaar ahaan barta YouTube-ka iyo Facebook-ga oo la leeyahay waxaa kala tegay fanaanada Soomaaliyeed ee Rasmi Reis iyo ninkeeda cusub ee Farxaan Yar ay dhawaan ku aqal galeen magaalada Nairobi. Wararkaas waxa ka jira ayaan aad u dabagalnay muddadii aan baaraynay arrintan waxaan la xiriirnay fanaanada Rasmi Reis oo arrimo badan nooga faahfaahisay iyo sida ay wax u jiraan. balse intaan daawadayaal u gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan halka aad nagala socotaan barnaamijkan aad ka daawanaysaan waa shabakada warbaahinta Glangal Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada iyo barnaamijyada aan baahino oo noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena. aan u gudagalay fanaanada lagu magacaabo Rasmi Reis iyo Farxaan Yare oo labadooduba ah laba fanaan oo Soomaaliyeed ayaa dhawaan ku aqal galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. isla maalmo yar kadib markii ay aqal galeen waxaa banaanka u soo baxay warbaahintana qabsaday iyo guud ahaan baraha bulshada gaar ahaan barta YouTube-ka iyo Facebook oo sidoo kale si aad loogu falanqeynayo inay kala tageen Farxaan Yare iyo Rasmi Reis oo labadooduba dhawaan ku aqal galay dalka Kenya. arrintaas oo dadka Soomaaliyeed ay si aad ula yaabeen ayadoo arrintan dhanka kale markii ay baraha bulshada qabsatay ay dhalinta Soomaaliyeed aysan wax baaritaan sameeynin balse dadka Soomaaliyeed ayaa markii barintaasi banaanka u soo baxday waxay noqotay mid si aad ay dadku u hadal hayaan. balse shabakada Glangal Media oo isku dayday arrintan aan ka hadal ilaa iyo markii ay baraha bulshada qabsatay horaantii bishan hadda aan ku jirno oo si dhamaanaysa ayaa waxa arrintaasi si aad u falanqeeyay baraha bulshada ee YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook iyadoo arrintan si aad looga hadal hayo guud ahaan dhulka Soomaalida degto sida magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi iyo wadamo kale oo ku yaala bariga Afrika oo ay Soomaalidu ku dhaqan tahay. arrintan ayaa waxa ay noqotay mid si aad dadka u soo jiidatay. arrinta kale ee lala yaabo ayaa waxa ay tahay in laba fanaan oo labadooduba gursaday muddo ka yar isbuuc haddana ay kala tagaan labadoodii maalmo yar kadib. balse arrintan oo si aad dadku ula yaabanayeen ayaa waxaan ka wareysanay waxna ka weydiinay fanaanada Rasmi Reis iyadoo Rasmi Reis arrintan si qoto dheer uga hadashay ayaa waxa ay sheegtay inaysan marnaba jirin ayada iyo saygeedana wax khilaaf aysan soo kala dhaxgelin isla markaana ay si aad noloshooda u wataan iyo mustaqbalkii ay dhawaan dhisteen intaba. waxaan sidoo kale Rasmi Reis wax ka weydiinay arrimaha sheegaya inay labada fanaan isku dhaceen isla markaana ay kala tageen. waxay fanaanadu noogu jawaabtay inaysan ka jirin arrimahaas oo dhanna ay yihiin waxyaalo been abuura sidoo kalena aysan wax ka jira lahayn arrintaasi. waxaan dhanka kale wax ka weydiinay fanaanada in ay jiraan in arooskuba markii hore ahaa waxaan jirin oo huuha ah dadkana sidoo kale loogu sheekeynayo inuu aroos dhaco maadaama iyaduna ay ka mid tahay dadka baraha YouTube-ka isticmaala ay sidoo kale YouTube-ka ay ku kala kicinaysay oo kale. balse arrintan ayaa Rasmi waxay sheegtay inaysan ahayn wax jira iyaduna sidoo kale sheegtay inay Farxaan isla joogaan hadda. waxay sidoo kale qadka noogu dhiibtay fanaanka anagoo isagana sidoo kale su'aalo noocan oo kale ah weydiinay. sidoo kale wuxuu sheegay inaysan waxba ka jirin waraha baraha bulshada waayadan lagu hadal hayo isla markaana ay noloshooda si aad u wataan. waxaan wax ka weydiinay sidoo kale inay labada fanaan inta isla sii joogi doonaan balse waxay noo sheegeen inay mustaqbalkooda isku dhameysan doonaan waa haddii aysan wax dhiba ka dhaxdhicin labadooda waa sida ay hadalka noogu dhigeen. waxay sidoo kale sheegeen inay labadooda dhawaan show wada jira ku qaban doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ama magaalada Muqdisho meeshii la isku afkarto waa haddii ay qorshahaasi suuro galayeen waa sida ay noo sheegtay Rasmi Reis iyo Farxaan Yare oo la xiriirnay. dhanka kale fanaaniinta ku sugan magaalada Nairobi ayaa sidoo kale arrintan iyaguna si aad u hadal hayay. fanaanka Ila Yare Qaaliladan iyo fanaanin kale oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa si aad u falanqeynayay maalmihii u dambeeyay arrintan iyadoo baraha bulshada sidoo kale lagu baahinayay muuqaalo iyo codad laga duubay lana leeyahay way kala tageen Farxaan Yare iyo Rasmi Reis. arrintan ayaa markii hore waxa ay gundhig u ahayd in labada fanaan markii ay isku yimaadeen ay isku fahmi waayeen waxyaalo ka dhaxdhacay sida meherka iyo arrimo kale. arrintaas oo meherkeeduna uu sheegay inuu qaali noqday Farxaan Yare markii Rasmi Reis ay heshiinayeen aysan ku heshiin lacagtaas. arrimahaas oo si batay ayaa waxa ay suuro gelisay in barnaamijkani uu mid noqdo banaanka u soo baxo isla markaana aan noqon mid sii socda. arrinta ayaa sidoo kale waxa si aad u falanqeynayay
dadka ku sugan magaalada muqdisho oo ay rasmi rays sheegtay inay ayada cadow ku yihiin nolosheedana ay kasoo horjeedaan. dadka qaar oo ay fanaanadu noo magac dhabtay ayaana halkan kusoo gudbi karin magacyadooda, balse waxay noo sheegtay fanaanada rasmi rays inay arrintaasi ahayd mid muddo soo jiitamaysay, sidoo kalena ay hadda ka gaabsanayso inay ku laabato magaalada muqdisho, aysan hadda doonayn inay dib ugu noqoto magaalada muqdisho ilaa iyo inta ay wax iska bedelayaan nolosha magaalada muqdisho, oo ay sheegtay fanaanadu inay caqabo badan kaga haysteen xagga nolosheeda. lama oga siday arrintani kusii socon doonto, balse arrinta xiisaha leh ayaa waxa ay noqon doontaa haddii arrintani ay rasmi rays maanta xaqiijisay ay noqoto mid beena, sidoo kalena ay baraha bulshada sidoo kale ay dib ugu soo noqoto. sidoo kale fanaanada laftirkeeda ayaa barteeda ay facebooka ku daabacday inay kala tageen, waxayse galaangal media arrintani ku xaqiijin kari weyday maadaama aan isyeelo waayeen fariimihii ay noo soo dirtay fanaanada rasmi rays, sidoo kalena farxan yara noo sheegay iyo barta youtube-keeda oo ay ku soo geliday muuqaal ay ku leedahay farxan yara iyo rasmi rays oo kala tegay. arrintaas oo hadda haddii aad dib u baarto page-ka ay ku leedahay rasmi rays youtube-ka aad ku arki karto inay ku qortay barteeda youtube-ka. waa midda shakiga gelisay in arooskooduba markii hore uusan ahayn mid saxa ama mid rasmi ah, la iskaga dhigdhigayay in aroos la dhiganayay. waa sida aan ka garan karno qoraalada iyo fariimaha lasoo dhigay barta youtube-ka. sidoo kale fanaanadu barteeda facebooka kuma aysa soo daabicin guurkeeda, balse waxaa guurkan keliya barteeda facebooka ku daabacday fanaanada hodan cabdiraxmaan oo ugu hambalyeyday iyo sidoo kale dad ayaga saaxiibo la-ah, balse labadoodu midna muusan kusoo qorin bartiisa facebooka ilaa ay kusoo qortay fanaanada rasmi rays barteeda youtube-ka inay kala tageen farxan yare. arrintaas ayaana noqotay midda shakiga gelisay arrimaha maanta laysla dhexmarayay baraha bulshada. waxaan sidoo kale wax ka weydiinay arrinta fanaaniin ku sugan magaalada Nairobi oo wax ka soo dhaweeyay markii uu garoonka ka soo degayay farxan yare, waxayna noo sheegeen in labadoodu markii ay isku imaanayeen ay meel wada degeen isla markaana uusan jirinba wax la dhigtay oo mehera. arrintaas oo ay dadka qaarkood noo xaqiijiyeen, mase hubno inay arrintani dhab tahay maadaama labada fanaan ayagoo aan la hadalna ay noo sheegayaan inay isguursadeen noloshoodana si caadi u wataan. khilaafka baraha bulshada qabsadana uu yahay mid been abuura, sidoo kalena aysan ku qanacsanayn waxyaalaha baraha bulshada qabsaday. dadka Soomaaliyeed ay sidoo kale fariin u direen ayagoo sheegay inaysan dadka kala fogeyn, sidoo kalena noloshooda aysan kala dhantaalin, qof kastana uu maaragtay noloshiisa xor u yahay, kii maaragtay furaya iyo kii isqabayana labadooda ay hadda isku qanacsan yihiin, isla markaana ay rajeynayaan inay mustaqbal wanaagsan wada samaystaan. balse lama oga siday arrintan u sii socon doonto maadaama fanaaniinta inta badan ay caan ku yihiin in markii laba fanaan isguursado ay muddo yar kadib kala tagaan. waxaan tusaale u soo qaadan karnaa fanaanka mursal muuse iyo qatra saliima oo labadooduba in muddo ah isqabay, isla markaana 3 caruura u dhashay. fanaanka mursal muuse waa qatra silme, isla markaana ka tagay kana raacay fanaanada hodan cabdiraxmaan. waxaan sidoo kale u soo qaadan karnaa cawaale aadan oo xaaslo ah inuu dhowaan guursaday fanaanada hani UK, haddana ay labadoodu ku aqalgeli doonaan magaalada Sweden. sidoo kale maalmaha soo aadan ayaa waxaa la filayaa inay fanaaniin badani magaaladaasi soo gaaraan, sidoo kalena ay isguursadaan. waa haddii aan idiin soo gudbi karno fanaaniintaasi meesha ay imaan doonaan, waa haddii noo suuro gasha insha allah. waxaan sidoo kale tusaale usoo qaadan karnaa fanaanada farxiyo kaba yare oo muddo ku siman dhowr sano meelaha iska wareegta, islamarkaana aanba ahayn qof xaasla garoob caruur le ah. fanaaniinta ayaa inta badan looga bartay inaysan mustaqbalkooda u noqon mid sii raaga, waxaase arrinta xiisaha la noqotay markii labadan fanaane 2 isbuuc gudihiisa isfureen markii uu kasoo degay farxan yare magaalada Nairobi, isla markaana rasmi rays ay kasoo socdaashay magaalada muqdisho si ay u kulmaan fanaankaas farxan yare oo isagu laftirkiisu kasoo socdaalay wadamadaasi Amerika. haddaba daawadayaal, arrimahan iyo kuwo kale oo si aad u haystay maalmahan baraha bulshada ayaa waxaan si aad u sii dabageli doonaa, waxaanan idin maqashii doonaa codadka iyo muuqaalo ay noo soo direen rasmi rays, sidoo kalena ay sheegayaan inay isla joogaan noloshoodana sii wataan. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaaladeena. fadlan haddii uu muuqaalkan yahay kii kuugu horeeyay ee aad ka daawatay galaangal media, subscribe saaro, calaamada gambaleelkana ha iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyada aan baahino, una noqoto qof ugu xiran. wixii fikrad iyo aragti ah hoos noogu soo qora.
waad ku mahadsantihiin daawashadeena like-ta iyo share-ta intaba hanaga xaasidina noona soo duceeyay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan uu noo faa'iideeyo waad ku mahadsantahay daawashadaada halkaad nagala socotaana waa shabakada warbaahinta Galaangal Media